حسن الشيخ محمود مدحوينها شرعي درده ku jooga villa Soomaaliya oo xalay ka carray madaxtooyada ayaa markaan dalbanaya in la joojiyo dagaalka ka socda gudaha Muqdisho halka beesha murursada gurmadkii ugu badnaa ay soo gaarsiiyeen ra'iisul wasaare hore Khayre dagaal qaatay muddo ka badan 20 saacadood ayuu Xasan Sheekh Maxamuud ka sharci darada ku jooga villa Soomaaliya waxa uu ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo sidoo kale ra'iisul wasaare hore Khayre ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya oo degan afaafka hore ee madaxtooyada ayaa waxa weerar ku qaaday ciidamo iskugu jira 5 qaybood oo ka amar qaata Xasan Sheekh Maxamuud oo sharci darro ku jooga villa Soomaaliya isla markaasina waxa ay weerareen gurigii uu deganaa ra'iisul wasaare Khayre halka ay kala kulmeen ciidamada taabacsan ra'iisul wasaare Khayre iska caabin halkaasi waxa ku sugnaa gwaaska guud ee beesha murursade iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee kol hore hayay Sanbalolshe iyo xildhibaan Jacfar oo ciidankan hogaaminayay istiraatiijiyadda ciidanka Xasan Cali Khayre waxa uu dejinayay Sanbalolshe iyo sidoo kale Jacfar isla markaasina iska caabin xoogan ayay kala kulmeen ciidanka ka socda dhanka dawladda madaxweynadeedu uu dhamaaday oo hogaaminaya madaxweynaha sharci darrada ku jooga villa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dagaal culus ayaa halkaas ka dhacay ciidanka dhanka dawladda ka socday iyo sidoo kale ciidanka ka socday dhanka Xasan Cali Khayre ayaa isku foodaray isla markaasina waxa gadaal loo riixay ciidamada ka socda dhanka dawladda federaalka ee madaxweynadeedii rasmiga ahaa uu dhamaaday isla dhanka kale Sheekh Shariif madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dawladda waxa ay ku qaadeen gurigiisa weerar ku bilowday madaafiic lagu tuurayo guriga madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif isla markaasina ciidamada taabacsan madaxweynaha hore Shariif ayaa halkaas ciidamada dhanka dawladda madaxweynadeedu uu dhamaaday waxa ay uga gubeen 2 gaari oo loo yaqaan nooca beebaha ah oo ay bixiyeen dalka Turkiga oo ah nooci ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya ciidamadiisa ay siiyaan iyo sidoo kale gaari cabdi bila ah oo ay lahaayeen ciidamada koofiyad casta ee madaxtooyada ma jirin weerar kale oo rasmi ah oo ay qaadeen ciidamada dhanka dawladda ee guriga Shariif marka laga reebo in ay ku tuureen madaafiic iyo hoobiyaal xalay kuma uusan hooyan madaxweynaha madaxweynadeedkiisu uu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud villa Soomaaliya isagoo ku hooyday dhanka wasaaradda gaashaandhigga halka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay ku dhaceen halka uu degan yahay madaafiic oo xalay u cararay dhanka xarunta baarlamaanka saaka markii uu soo laabtay madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud ayuu mar kale waxa uu amray in weerar lagu qaado guriga ra'iisul wasaare hore Khayre oo degan afaafka hore ee madaxtooyada isla markaasina ciidamada ka amar qaata Xasan Sheekh Maxamuud oo sharci darro ku jooga villa Soomaaliya ayaa weerar ku qaaday guriga ra'iisul wasaare hore Khayre iyagoo ku tuuray madaafiic balse ciidamada taabacsan dhanka Khayre oo iska daafacaya madaafiicdaasi ayaa dhankooda iyaguna madaafiic waxa ay ku garaaceen dhanka madaxtooyada beesha caalamka ayaa Xasan Sheekh Maxamuud u sheegtay in haddii uu joojin waayo dagaalka uu ku qaadayo mucaaradka oo la kulmayo cadaadis kaga imaanaya dhanka beesha caalamka iyagoo sheegay in ay jarayaan cunaqabatayna ay ka saarayaan dhanka dhaqaalaha iyo safarada Xasan Sheekh Maxamuud حسن وعليس كلا كل ما يباشا عالمك أيانا ويري وزير كيسا عدالة يتصورك حسن معلن سلا مركزنا واحد وشاقي إنه وضع هذا الله لقله ننك الرئيس الوزراء خير حسن معلن مركو هذا ننك الرئيس الوزراء حسن علي غير روح الله شاقي شروطنا الله قد جاي إن مركو اللوب بهاي هاي إن إذا ماذا كسوغان آجاسي يكسر ذا ننك حسن شيخ محمود جوبت لقى قاعده تاسوا أي أقبلن وجوبت ولا جسوا بعيد إذا ما دي تابع سنة حسن شيخ محمود وده أيانا الله أقبل مركز إنه سوق على حسن معلن وده هذا لا توصى يا أصعد حسن معلن يصيروا كل رئيس الوزراء خيره حلي كان وحاسد توصى وده هذا الله سوق بيري ترياه أدنى وسوق ده يصيرون كقرن كالنساء مهد محمد سلاد وده هذا الله واعي السودان حسن شيخ محمود وحى معارض كقعد صدي إن أي كل أبتان جوبه يهره سي وده هذا الله ولفره بس مدحوينه هو رئيس الصومالي الشيخ شريف يصيروا كل خيره وحى يكون أتكستين إن أي كل جوجيان جوبه ده إسلام مركز إن وده هذا نديه وبهن هاي أي جوبها أي هاتن جوجان أي كلها ضيان هذا حسن الشيخ محمود أو جمعها دي كل جرا مسيما مولي كرا دلك